goorta aad meel madow dhigto gaarigaaga adiga oo ka cabsanaya tuugada, ka codso xafidka inuu ku ilaaliyo, waayo wixii loo dhiibto way ilaashan yihiin. haddii aad ka baxdo gurigaaga adiga oo cabsanaya ubadkaaga, dheh waxaan idinkaga tegayaa Allaha weyn ee aan dayacmayn wixii loo dhiibtaa. ogow Ilaahay waa ilaaliye. danta marka ay kugu khasabto inaad walax qiimo leh kaga tagto meel aan ammaan ahayn, qalbigaaga u jeedi xaggiisa. Eebbe inta uu uumay addoomihiisa faraha kama qaadin, balse waxa uu siiyey hubka ugu fiican ee ay kaga hortagaan geedisooyinka nolosha. noole walba waxa uu ku hubeeyay seef u qalanta dagaalka uu galayo. qayb ka mid ah xayawaanada waxa uu ku ilaaliyaa carar sida garanuugta iyo bakaylaha. jaad kale waxa uu siiyey geeso ay ku dooxaan cid kasta oo u soo dhawaataa sida jeerta. duul kale waxa uu ka dhigay kuwo jidh ahaan u waaweyn. noole kasta oo soo doontana waa ay jiidhaan sida maroodiga iyo madax kutiga. kuwo kale waxa uu ku hubeeyay koronto halis gelinaysa wixii ku soo dhawaada sida faanuuska badda. jaadad ka mid ah xayawaanada ayuu ku hubeeyay sun ku dhex kaydsan jidhkooda sida maska iyo dibqalooca. jirjirooluhu waxa uu awood u leeyahay inuu bedelo midabkiisa xilliga uu u baahdo. qaar baa duula, kuwo kale ayaa dhagrid badan, halka kuwo saddexaadna fantaan dhirta. qaybahani waxay ka mid yihiin ilaalinta Ilaahay. inta aynaan garanayn ayaa ka weyn oo ka badan.